كلوربانيت كدو دا جيركا ugu qabteen halkan waa hotel xaraf magaalada Hargeysa xubnahan oo kamid ah xildhibaanada aqalka golaha odayaasha guurtida Soomaaliland ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay xabsiga ka sii deyso madax dhaqameed iyo sidoo kale uqaal ay tilmaameen in xukuumaddu xabsiga dhawaan u taxaabtay xildhibaanadan oo kala xildhibaan Muqtaar Xaaji Maxamuud Dirqadaan xildhibaan Maxamed Maxamuud Yaasiin Deeg xildhibaan Muuse Obsiye Gacan xildhibaan Muuse Ibrahim Awnuur oo dhamaantood kamid ah aqalka golaha odayaasha guurtida ee waxa kamid ah daladoodii sidan haddii wanaag doonaysa dawladdu oo doonaysa wax wanaagsan inay ka soo baxaan oo dagaalka gudaha iyo ka ku adkaata haddii doonayso shirka faraha kala baxdo shirka wanaagiisa mooy xumaantiisa dawladdu faraha kala baxdo waxaan u soo baxnay xanuunka ka soo boodaya halka haddii maanta halkaas soo xidhan shirka la qabto xanuunka ka soo boodaya baan ogna waxaan leenahay ragaana imika degdeg loo soo daayo shirkaana dawladdu faraha kala baxdo shirkan xajintu isugu tago oranaya Soomaaliland lagu xumeeyo afarta sano aad soo dagaalamayni wixii inay naga burburaan dooli ma inaad adooshan laga soo koob iyo toban qodob baa arooshan soo la soo toray waxa lagu soo ray cigaal buu ka socdaa baa lagu soo ayaa lagu dilay waxaan leenahay adeernin halka iska wareegaysanayay oo iska daaq tagay kolba oo kol Itoobiya tagay kol aadiyad maayo koonfur baan qabanaya laha maanta uma talinayo Soomaaliland inamadaas waxay ku xiran yihiin cidda ma batiro annaga leh عندما مثلوا قيس كيس والله أنا سلطان وهاي المنطقة إلى عبد القادر قيس كيس أنا وهاي غلطا نكنا به فوق قيس يسوي ورابو كل لبانه بل كان أنت يتلد وكان سوق كويال هرجس هير كاسي قاد ما أنت هير كاسي نتوجنا إلهي ما هدي بنتوجنا وحنا الحكومة ده هكذا يسودت كده قدو يسكعد حرينه شركة واحد أي كطبعا سلادي كصوب حيانا كصوب حماية سومالين ما أنت نمبربرين إياه oo la hal burburiyo oo khilaaf iyo dagaal laga soo saaro ma jiro waxaan ogeyn dhalinyarada iyadii badda ku dhamaatay ee mustaqbal xumada ka yaacday mid labaad la abuuri maayo iyadu waxaan leeyahay iyada rabshada wadee ka deyso haday iyadu salaadiinta dirayso leedahay idinku doomiyana ka ogolaan mayno waxaan leeyahay uqaasha la sii daayo shirkooda ka qayb galaan dawladuna khayr ha ka filato wanaag la isugu baaqo waxaan maanta isugu nimeynaan halkan uu kalmad yar kan idhaahno waxaan leeyahay xukuumadda xarig xal maaha in ummadda xarig lala daba galo iyo caburin waxba ma tarto dadkana way kicisa haddii ay wax u tarayso waxa u tarlay dawladdii hore ee duntay Soomaaliya oo dadka sii kicisay shirkan maanta ay garxad isku qabsanayaan halka gacan libaax wax bali ma jirto laakiin waa sidii laga dhigo haddii ummadda iyo xukuumadda waa loogu sheego shar inuu ka soo baxaa laga yaabo laakiin xukuumaddu waxaan kula talinaynaa arrinta ay dejiso joogso qabqabashadii xariga dadkana aanay maxay hayday kala saarin waxaanu la mid yihiin shirarka ay qabsan jireen beelaha Soomaaliland ee mid walba ay ka soo bixi jirtay wax wadana xukuumadda yaan soo jeedinayna sababtu waa maxay waxaan rajaynaynaa inay midho wanaagsan oo anfaca oo Soomaaliland u dana beesha shirka qabsatay ay ka soo bixi doonaan haddii shirka dawladdu islaasa hortaag taas waxay keenaysaa أول بين نجا أو كلا تتصرين ومضوا أي كلا تتصرين وأي أباهنيد وحصوا أوريا وبدأ الصومال لما أنت وحي أباهنتي وحي سوا أوروري لها ميز كيسو كيني لها الكلام إذا يسكت صار لها ما أباهنتي لكن كان كيرو يحنجروفو يو قايبين وما باهنا فيصل محمد آدم فيصل في فتفيق عالم جيسمالي كيبل هرقيسة